intaan u gudagalin warbixinada kale aan idin hayo fadlan subscribe saar share gareyna muuqaalkan gaarsii asxaabtaada si markaasi ay ula socdaan waxyaabaha ay aad u xiiseynayaan waxaan soo qabanayaa markan taxanaha herkaay ama musalsalka Soomaalida u yaqaanaan Miiraan iyo Rayaan Soomaalida dad tiraado herkaay waxa laga yaabaa dad aad u yar inay fahmaan laakiin musalsalka Miiraan iyo Rayaan dad tiraado waxa laga yaabaa in dadku dhan ay aqoonsadaan taxanahan horta dalalka daafaca caalamka oo dhan ayuu qabsaday magaalada Muqdisho dalkan Soomaaliyana aad looga xiiseeyaa daawashadiisa iyadoona gabdho aad u fara badan oo haddaba laga yaabo inay daawanayaan ay aad u jecel yihiin daawashadiisa waxaan idin hayaa marka taxanaha herka sheekadiisa aan idin bilaabo inaba caadi ma aha sheekada taxanaha herkaay kaasoo si waali ah looga helay waliba wuxuu noqday taxanihii loogu iibsiga badnaa sanadkii hore ee 2019 isagoona bandhigii Paris ka dhacay ay taxanahan iibsadeen 50 dawladood oo daafaca caalamka ka tirsan sidoo kale xalqada koobaad ee taxanahan herkaay ayaa noqotay xafladii loogu daawashada badnaa abi taxanayaasha Turkiga waxaana YouTube-ka ilaa ay haatan ka daawatay in ka badan 25 milyan oo qof mana aysan dhicin horay in taxane ay YouTube-ka ka daawadaan tiro intaani la eg hal xalqo waana record herkaay u gaar ah haddaba arinta ugu weyn ee taxanahan cirka gelisay ayaa ah sheekada taxanahan oo si weyn looga helay waana sheeko soo jiidasho leh taasoo daawadaha ku qasbaysa in uu si joogto ah ula socdo isla markaana ka dharsugo dhamaadka qisadan cajiibka leh iyo halka ay ku ekaan doonto marnaba lama dafiri karo doorarka cajiibka leh iyo qaabjilinka ilqabadka leh ee ay soo bandhigeen jilaayaasha taxanahan inkastoo badankoodu aysan shacbiyad weyn lahayn ka hor taxanahan haddana waxa ay si aan caadi ahayn u jileen taxanahan ayagoona jilaa kasta uu doorkiisa si la yaab leh uga soo baxay haddaba akhristo waxaad la socotaa taxanahan sidee adigu aad u aragtaa sheekadiisa commentiga hoose waad noogu reebi kartaa sidee adigu u aragtaa taxanahan ama musalsalkan Miiraan iyo Rayaan maadaama sheekadiisu inta badan ay tahay argoosi haddana adigu ahaantaada fikirkaaga maxay kula tahay waad noogu reebi kartaa commentiga hoose isla warbixin ku saabsan taxanahan herkayga waxaan marnaba la dafiri karin qaabjilinka cajiibka ee jilaayaasha Akin Akinozu iyo Ebro Sahin ku soo bandhigeen taxanaha herkaay ayagoona doorarkooda Miiraan iyo Rayaan si weyn uga run sheegeen jacaylka Miiraan iyo Rayaan waa mid cajiib leh waayo Miiraan wuxuu jecel yahay cadawgiisa koowaad misna waalidkiisa dilay gabadhii uu dhalay asagoona qaab waali ah u jeclaanaya misna darteeda qoyskiisa iyo qoyskeedaba u wajahayo dhanka kale Rayaan ayaa markaasi ayadana waxa ay jacayl waali u qaadeen ninkii sharafkeeda iyo midka qoyskeedaba dhaawacay sidoo kalena magaalada oo dhan ku fadeexeeyay ana cadawga koobaad ee aabaheeda ayadoona dartiisa qoyskeeda uga soo tagayso misna cadawgeeda Aziza ula noolaanayso waa caqabado la isku dili karo waaqic ahaan balse lamaanahan ayaa jaceylkoodu wax walba markaasi ka tanbadinayo heer ay gaaraan in mid kasta go'aamada qoyskiisa ka hor yimaado xitaa Miiraan ayaa argoosigiisa Rayaan darteeda u hakinayo misna bilaabayo in uu markii ugu horeeyay ayaydiisa ka shakiyo iyo in xaqiiqda raadin uu markaasi ugu dhaqaaqo haddaba soo lama dhihi karo jaceylkii Miiraan iyo Rayaan wuxuu daawo u noqon doonaa colaadda ka dhex aloolsan labada qoys ee reer Sodoglo iyo reer Aslan Bey waa labada qoys ay ka soo kala jeedaan lamaanahan isjecel ee Rayaan iyo Miiraan waxa ka dhaxaysa colaad aad u weyn oo markaasi la sidii karo musalsalka iyadoo qayb ka tahay oo xiisihiisa reer Sodoglo iyo reer Aslan Bey marka ayadana wixii fikir aad ka qabto waad noo soo gudbin kartaa oo commentiga hoose noogu reeb waayahay waxaan filayaa wax baynaysan inoo harin marka arin rag u gaar ah ayaan idin soo badaa markan